الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Soomaalida meel kasta dacwada adduunka aad ka joogtaan waa idin salaamayaa. waxaan jeclahay insha Allah daqiiqadahan yar inaan ka hadlo saddex fariimo inaan idin diro insha Allah. fariinta koowaad bisha Dhulxija barakeysan sanadkan 1443 waa 2022 milaadi. lowii kadib insha Allah waxaa foodi nagu soo haysaa bishii Dhulxija barakeysneed. waxaan rabnaa ka hadla fadliga Dhulxija si kooban. Allah subhanahu wa ta'ala horta asaga ayaa khalqiga abuuray. rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtaar. Allah asaga qofku rabo asaga khalqiga uumay in asaga doorta wa yakhtaar ma kan lahum al-khiyara. asaga wax kasta doorta ilaa asaga khalqiga abuuray wuxuu khalqiga dhan u abuuray aadam caruurtiisa ayuu ka sara marsiiyay ama ka fadli yeelay makhluuqa kale. maxaa dhacay? rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtaar. ilaahay asaga khalqiga uumay asana u dooranaya ninku rabo ayuu ka sara marsiinaya facaalun lima yurid. cid wax weydiin karta haba yaraatee ma jiraan. taas waa mid koowaad. mid labaad waxay tahay ilaahay khalqiga maalmaha uu abuuray wuxuu ka fadli yeelay maalmo mucayan ah sidii bilaha oo kale. afar bil muharram ayuu ka fadli yeelay. kadib wuxuu sii raaciyay bish ramadaan ugu fadli badan tahay bilaha. maxaa dhacay? rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtaar. Allah asaga uunka abuuray sa hore u sheegay na asagana dooranaya wax kasta waxa ku haboon. Allah subhanahu wa ta'ala khalqiga aadam caruurtiisa ayuu ka fadli yeelay aan dhahnay. wuxuu ka doortay ambiyada wuxuu ku saddex doortay 5 nabi oo ulul azm waa nabi nuux iyo nabi muusa iyo nabi ciisa iyo ibrahim iyo nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam. إذا أخذ الله من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. شنتاس أولي عزم وحكسي دورتين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أساق أوفى بدن خلق إله أبو ري صلى الله عليه وسلم. دولكنا إله تعالى وحكفض لي يلي مش وفض لي بدن واحد تاعي ومكة حدعي وربك يخلق ما يشاء ويختار. أما المها جمعة يوفض لي يلي وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى 24 ساعة حوية لي الساعة الدحية الثلث الأخير من الليل إن أقول فضل بانتهي الساعة دورتي فعال لما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار. وحنوصف هاي أيها الأحبة طبعا عشاء ذي الحجة تاريخ القوات ما أنت حنا لحي طبعا ذو القعدة واي حنقول من أفرتون عشاء إن شاء الله مصدحتون عشاء كون ذو الحجة بش عرفه إلى طبعاً ما أنت عيد الأجر وما وبركيسان أو فضل وين له. الله تعالى وكدرتي والفجر وليالي 10 كدرتي فجرك طبعاً هو الرئيسه ذو الحجة أما بش عرفه. نحن الحديث صحيح وكل هي عمل لسمية وحقوق فضل بدن أيامها طبعاً عمل لسمية وحلو رسولك قال له حتى قفك الجهاد أبحى وحكى فضل بدن طبعاً عشاء عمل قفك مسلم وسمي عمل الله ودواه سبحانه وتعالى. نبي وحوري وحوري إلا قف مجاهد كبح حوليس النفتي سكوسو ويا أنصار نقل كاسيها. لكن هذا قف مجاهد كون جهاده صار نقض أما حوليس ويا وصار نقض أما أسجل لا ويا حوليس صار نقض وحكفت بدن أيامها طبعا كبش عرف أول رئيسه عمل لسه ميستم. فذلك أيها الأحبة أن كفى السنة أيامها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكري جيو تعليلك تسبيح إن لبط صدق. عمرك كهدلاين waxay dhahan soonka in la soo masaqalka casho min taariikh koowaad ilaa sagaal way banaantay sabta acmaal saalix ay ka sugaysaa. ama xadiiska Aisha radhiyallahu anha ilaahay subhana sallallahu alayhi wasallam aan arkin asoo 10ka Dhulxija soomay. culimadu waxay dhahan ayada ay wixii ka waday ayada ma ay arkin laakiin nabiga waxa ka sugnaa inuu soomi jiray sallallahu alayhi wasallam. xadiiska ku soo aroortay ala kulli hal soonka in la soomo waa sunno. بش عرفة ما أنت عرفة إن لسه متاسع وقوف مستحبة زيادة. نبي حكومة صلى الله عليه وسلم نقول بش ما أنت عرفة صومة إلى تعالى الدم بلا وصنع عيو الدم بنافع الذنوب تغير. إذن أيامنا أنكفى سنة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ممكن نبي ده عمل لسمي إلهي وجعل لي طبعا عشر لسمي سومالي وحقيقة ما أنت سأكتهن أبارا بحسن ضدك مساكين هلا قرب استاجو هلا قوديو قف كستا كرانكيسا أيامها kusoo aadaysaa waa ayaamo fadli badan
udxiyada aad gurigaada ku qalan lahayd meesha maalin kasta neef waa qalashaa waa qalataa hilib waa ka dhartay waxaa habboon inaad Soomaaliya u dirtid udxiyadaada dadka masaakiinta meesha inay cunaan oo gaajada macluulka u dhamaanayeen taasi waxay ga tahay waana in nasiixo waxa baxsatan ila agtiisa ka helaysa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah agtiisa ka helaysa subhanahu wa ta'ala ilaahi ta'ala sadaqada baxsano ilaahi aan ugu dhawaano jalla waalidana dhintay u bixi way gaaraysaa sida xadiis nabi ka sugan sallallahu alayhi wasallam dardaaranka labaad inaan dhiibo waxa waaye madaxda Soomaaliya waxaan ugu dardaarmayaa ilaahina ka baqaan subhanahu wa ta'ala ummadan waa muslim kitaabka ilaahina ku dhaqaan kitaabka ilaahina ugu filan inay ummadda ku dhaqaan ayaan u dardaarmayaa kitaabka ilaahi ta'ala waan ugu filan yahay afa xukmu al-jahliya yabquun xukmu al-jahliya meelaadina ilaahi ta'ala u leeyahay kitaabkiisa soo kuma filno ummadana ku dhaqaan kitaabka ilaahi ka baqaan subhanahu wa ta'ala labo cadaalad iyo sinaan inay ummadda u horseedaan ilaahi quraan wuxuu ku dhahay وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وحد كحكمتا وحي إله قوسو ديجي سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل إله ذلك أمر إن عدالة ذلك إسنان لو هرسوه قبيلة دا وحي فائدة كين السمر وما أنت مشان نالنا صومالي أنجوغنو دلو نوها بسدي واتقانا إنا كشاكي ما ولا يقانا قبيلة عنصرية ayaa na dhigtay hadda baashi qabyaaladii waa shaati kale u galinay waxaan ka dhignay inaan ka dhigno qabyaaladii waxaan u bedelnay gobolaysi qof kasta gobolaysigii ayuu u dagaalamaya u tartamaya lidalika ayuha alxiba madaxda waxaan leeyahay ilaah ka baqa subxana watacaala ummaddaas kitaabka ilaah ku dhaqa cadaalad iyo sinaan ayay ummadda ku dhaqmaysaa cadaalad iyo sinaan haddii la helo Soomaaliya way toosaysaa Soomaaliya in la dagaalamo dulmiga in la dagaalamo daalimiinta in la xisaabtamo dadka wadanka qalad ka galay muslimiinta dhigooda daadiyay laayay in la qabto sharciga loo tiigsado culimadan waxay dhahaan albari qofka bariga ah waa bari ilaa ku cadaato inuu mutaham yahay فذلك يدك الظالمين إن لو ديبين ملا حساسية أمدا إن لو ديبين لحظة أنت سيان كنت أبدار ما إله كباستها إلهي هو الاستغاثة سبحانه وتعالى إلهي وحوليه وقفوهم إنهم مسؤولون صلاتهم كلمة الجوجية مسؤول أي أهيان وحرمنا إنهم وليسنوا حاكو جوابي سهل النبي حديث صلى الله عليه وسلم كعنت هذا ملك وجنة بدح والنارتا إلهي وكل هذا سبحانه وتعالى دحدنا ترجمان إذا ما دحيو حالكم جوابيسا الدنيا بالله وكدكتي إلهي هورتك سبحانه وتعالى قريء أنا سويسا حديثها مدحنا الصوماليا ومدحوين يوزير نيكستو مدحه إلهي نكبه سبحانه وتعالى كتابك السلام مدر كله عدالة السنان ومدو باهنتهي صوماليا مباهنا أنت وحكرا أنت سكري أيو باهنتهي دلتانك ازدحاد الحرم ناسيو شعبك الصومالي شعب Soomaaliya Ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala waxa loo baahan yahay madaxda inaan adeecno inaan u duceeyno waxa loo baahan yahay ninka madaxweynaha noo ah inaan adeecno inaan u duceeyno inaan garab istaagno maahan jilbaha inaan qabano maahan inaan durno maahan inaan war been ka faafino maahan dadka inaan ku durno dabeecadis waxa lagu yaqaanaa khawaarijkii la yaqaanay oo mar kasta waxay sameyn jireen مدحدي المسلمين تها أين استاجا مساجدها الشعب كيستسجرين حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم حديث حول النسائي أحمد بيقي وحديث صحيحة وحسنه الألباني رحمة الله عليه سبحانه وتعالى دارتنا ودر دارنتد منك مدحدي صرت مدحدا ملائكة ماهن معصومة قلد وإليهن قصب قلد إليهن من الذي ما ساء قط ومن له الحزن فقط يا وننا أن يا وقفكي له مانتا وناقله يا وننكي الدنبل له من آذنك قلد إيبوليه آذنك معصوم من عصمه الله فلذلك قلد ولهان كرا قلدك دا كسي حيسد فقارها كالشيء النبي عسام ودي فقارها لك الشيء وإن قعنت قبتها أذي أتسل كليا وشيكتها أدو كاقاتا
watii la rabay qaladkii hadduu kaa diidana yeelkadiisa waajib ku saarnaa waa gudatay culimadu waxay leeyihiin haddii aad gaari karin u teekay madaxweynaha ama qofka mas-uulka wasiirka qof walba ha noqdo social media da u marin kartid adoo isticmaalaya taqdiir iyo ixtiraam iyo hadal wanaagsan iyo xikmad maaha laakiin inaad ijaafaysid diintani ma qabto in shacabka iyo madaxda la istuso diintani ma qabto badanaa waxaa lagu soo gabadaa qabiil iyo shakhsiyaad qofku waxaa ninkaas waa necbahay waxaan u soo marayaa kaanuu sameeyey qofka in la dabagalo qaladaadkiisa qalad uu lahaan karaa laakiin waa in la saxaa qofka waa in la garab istaagaa waa in loo duceeyaa xataa waanada waa in noqotaa waana wax dhisaysa maaha waana wax burburinayso millati axsan taasay diintani ay nafartay nabiga sallam taasuu nagu amray sala allahu calayhi wasalam nabiga xadiis saxiix wuxuu ku dhahay adeeca madaxdiina ilaa ka aragtaan gaalnimo cad ilaa an tarwa fiihi kufran bawaaxan gaalnimada cad maxay tahay saaday diideen khamrada hala cabay dheheen zinada banaanta dheheen markaas ma adeecin laa taacta almakhluuq macsiyat alkhaaliq inama ataaca bilmacruuf ayuu leeyahay subhana sal sallam kuma adeecina qof makhluuqe anagoo ilaahay caasinayno waxaan ku adeecina waxa wuxuu ilaahay tacaala quraale ka yahay intaan aan ku soo gabagabeeyo kelmadeyda ay tahay 10ka carafa in laga faa'iideysto Soomaalida abaarta ku habsatay in loo gargaaro in wax loo qabto iyo madaxda waxaan dhihi lahaa muhiimad weyn qadan culays badan idin saaran waa idin bari Allah taala inuu idin la gargaaro idinna fududeeyo mas'uuliyad culus waay laakiin ummadda kitaabka Ilaahay ku dhaqa sinaan iyo cadaaladna laga helo dadka wadanka qalad ka galane madaxa u dhiibina maxkamadda la tiirsada daalim kasto waa in dulmigiisa laga qabtaa Soomaalidana waxaan ugu soo gabagabeeyay madaxdooda adeecaan u duceeyaan warkan kutaanka ay wadanka burburinay faa'iido leh la joojiyo ilaahay laga boqo subhanahu wa ta'ala jazakumullahu khayr sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin